madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa lagu dhaleecaynaya qaabkii uu la tacaalay dibadbaxyaasha ka socda dalkaasi Mareykanka ee ka dhashay caradii ay dadku ka qaadeen ninkii midowga ahaa ee gacanta booliiska ku baxay. Mr. Trump waxyaabaha lagu eedeynaya waxa kamid ah kala qaybinta uu ku sameeyay bulshada Mareykanka iyadoo ay dadka eedeymaha u soo jeedinayaan ay kamid yihiin mas'uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay Mareykanka. Xogayihii hore ee gaashaandhigga Mareykanka James ayaa dhaleeco u soo jeedinaya madaxweynaha dalkaasi Donald Trump waxana uu ku eedeynayay inuu si ula kac u kala qaybinayo ugu sameeyo bulshada si ula kac ugu sameeyo bulshada dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu ka cadhooday isla markaasina uu ka naxay sidoo madaxweynuhu ula tacaalay dibadbaxyaasha ka dhashay dilkii ninka midowga ahaa. waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu ka tagrifalaya awoodda isagoo shacabka ugu baaqaya inay ilaaliyaan nidaamka u yaala dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay xogayihii hore difaaca dalkaasi Mareykanka in madaxweyne Trump uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee noloshiisa u arkay kala qaybiyay dalkaasi Mareykanka. Waxa dhowr jeer hore Trump uu ku tilmaamay James inuu yahay janaan xilka uu hayo aan u qalmin. James ayaa xilka iska casilay sanadii 2018 kadib markii madaxweyne Trump uu shaaca ka qaaday inuu ciidamada ku sugan Suuriya uu kala baxay. Xamse Dabaare, Star TV.